aan jecelnahay meel walba aad joogtaan iyo waqti walba ay idin tahay waan idin salaamaya kusoo dhawaada Amiir Soomaali. Xalay waxaa dhacday laba ciyaarood oo Soomaaliya ay ciyaareen. Mid waxaa waaye under 17ka, midna waa ciyaaryahanada waaweynka ah ee federaalka. Marka labada ciyaarood ba horta guuldaraan kala kulanay. Under 17ka waxay ciyaareen ciyaar saaxiibtinimo, waxay la ciyaareen Ivory Coast waa naadi caadiyan awood badan 8-0 waa adiga friendly match iska caadi ka ciyaar kala ciyaartay oo jirtay oo aan la ciyaareynay Botswana. Ciyaartaasi runtii indhaha aad loogu hayay sababtoo waxay tahay kulankii hore oo aan la ciyaarnay qoladii Gini waad ogeed natiijo fiican ayaa ka imaanay, barbaraan la galnay. Ciyaaryahanada dadaal badan ay sameeyeen, kubadda isku dhugsashada iyo wax walba oo ka yahaayeen. Marka dadka waxay isweydiinayaan horta xagee qaladka uu ka jiraa, qaladka xaguu ka jiraa ma ciyaaryahanada ma tababaraha. Tababarihii hore horta waa la ceeriyay, waa la soconay. Marka su-aasha taagana waxay tahay qaladka xaguu ka jiraa, xaguu qaladka ka jira arrinta xagay iska qaban laadahay ay dadka Soomaaliyeed badan ay isweydiinayaan. Mar walba oo aan meelahaas tagno ciyaaryahanadeenna tabar darro badan ayaa lagu soo sheegaa. Horta xalay ciyaarta dhacday ciyaaryahanada aad bay u wanaagsan ayeen, waa weerartamayeen, kubaddooda dhexda way fiicneed, laakiin fursad gool dhalin ah ma lahayn. Markii laga hadlo runtii qaranka heerarka kala duwan uu soo maray iyo sanadihii la soo dhaafay, sanadahan dambe waqtiga ay ugu fiican tahay waa hadda. Markii xaqiiqada laga hadlo, kubadihii hore uu ciyaari jiray qaranka markaan fiirino iyo hadda waa qaran adag, daafac wuu adag yahay, kubadda dadka way la qaybsadaan marka runta laga hadlo oo aan la xaqirin. haddana weli waxaa waaye meeshii la rabay anaga ma taagin. Marka horta ciyaaryahanadeenna markii la joogo horyaalka Soomaaliya awoodooda, kartidooda, xataa inkastoo xataa ay horyaalka Soomaaliya ay ka ciyaarayaan ciyaaryahano ajnabi ah, haddana waxaa dareemaysaa awoodda kubadaha, darbiyaday jabiyaan. markii la imaado banaanka la imaado qaranka la soo aado, waxaad moodaaba in yacni xataa goosha aan la gaarin, daafac la wada gelayo, kubadda ay nagu socoto, laba kubad aan la heli karin, ciyaaryahanka kubadda uu la dhacayo ma isbiidka ku yar, ma alamidan ku yar, kulli alamidan kuma yar, 24 saac qoraxdaasi lagu cararsiiyaa. Horta ciyaaryahanada laga keenay wadamada caalamka ka imaaday tiimamka kala duwan oo ciyaaro, waxyaabo waxaa jirto ay nagu soo kordhiyeen. waxyaabihii nagu soo kordhiyeen waxaa ka mid ah kubadda haysashada. Horta waa lagu ammaanayaa, kubadda haysashada waa lagu ammaanayaa. waagii hore annaga ciyaaryahanada Muqdisho laga soo waday badanaa ama Soomaaliya laga soo waday badanaa kubaddu maysan haysan jirin, laakiin kuwa ani kubadda haysashadooda iyo sida ay kubadaha usoo xoogayaan, kubadahaas ay ula qaybsanayaan, daafacooda adag waa cajiib. laakiin waa la iska badiyaa, waa caadi. qaranada kala duwan xataa qaranada badanaa laga badiyay. haddii yacni lagu eedeynayo oo la dhahayo xataa wadanka burbur soo maray, haddii la dhihi lahaa xataa Jabuuti oo naadi adag ah oo intaasoo sano soo jirtay ayaa markii ay ciyaarayso laga badiyay. hadda xataa kulankii ugu dambeeyay Ethiopia la ciyaartay 6 lagu garaacay. marka Jabuuti ma dhihi karno wuxuu soo maray burbur soo maray, dhibaato soo maray ma dhihi karno. laakiin su-aasha taagana waxay tahay arrinkani xagee iska qaban laadahay, maxay tahay meesha laga haysto, waa halkee meesha laga haysto ciyaaryahanada qaranka, xagee laga haystaa. wadamada kaleetood Afrikada waxyaabaha ay nooga fiican yihiin waxay tahay kuwa badan oo annaga aan ka roonaan way jirtaa. wadamada Afrika badanaa waxay nooga roon yihiin, ciyaaryahanadeeda badanaa waxay ka imaadaan Yurub ay ka wada ciyaaraan, laakiin ciyaaryahanadeena Yurub way ka ciyaaraan waa sax, laakiin heerarka kuwaad maysan gaarin, heerarka hoose ka ciyaaraan badanaa.
Serie B-da iyo ay ka ciyaaraan. Hadda waxyaabihii Premier League oo kaletood, Serie A-da oo kaletood ciyaaryahanno ka imaaday oo qarankeena u ciyaaro ma badno, maba jiraaba u malaynaa. Sweden xataa ciyaaryahanno badanaa maqan sida la sheegay. Kuwo kale Sacuudi Carabiya ka ciyaaray iyo kuwo meelo kale ka ciyaara, Mareykanka ka ciyaara, Canada ka ciyaaro way jirtaa. Marka waxaan rabnaa waxyaabaha u baahannahay waxaa waaye hadda horta meel fiican ay wax ku socdaan, habana laga badiyo waa sax, laakiin kubaddayna sida aan dadka ula qaybsanayno waa si wanaagsan. Laakiin intaasi kaliya naguma filno. Annaga waxaan baahi u qabnaa guul. Sanado badan kadib ciyaaryahannadeena under 17 sanadkii lasoo dhaafay 2022 waan la soconay guushii ay soo gaareen iyo koobkii ay noo keeneen. Waan ku faraxnay runtii. Waxaan rabnaa mar kaletood ciyaaryahanada waaweynka ayaan waxaan rabnaa natiijo wax ku ool ah. Waxaan rabnaa in xataa meelo fiican aan gaarno, aan aragno ciyaaryahannadeena oo laga baqayo, meel walba awood kula ciyaarayo, kalsooni ciyaarayo. Waxyaabaha u baahannahay waa waxaas. Ciyaaryahanada ka imaaday wadamada Yurub ka imaaday ama horyaaladaasi ka imaaday waan ammaanaynaa. Waxaan ku ammaanaynaa waxay tahay kubadaha lala qaybsanayo asaagooda. Kubadaha way la qaybsadaan, way weerartamaan. Weerarka inkastoo aad uusan u badnayn, laakiin way sameeyaan laftirkooda. Kubad ceysashadoodu way fiican tahay, daafacoodu wuu fiican yahay. Hadda waad aragtay Kaftan Cabdisamad, wallaahi ninkaasi waa nin cajiib ah. Waxyaabaha uu sameynayo iyo kartuunadiisu waad la yaabaysaa. Marka wixii aan sheegi karno waan sheegnay. Waa idin salaameynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.